Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhowaada Somali Technology Solution Committee A+ casharadeenii sii soconayay aan ku baranay Committee A+. maanta waxaan ka hadlanaa network hardware loo isticmaalo hardware network loo isticmaalo waxa kamid ah mid loo yaqaano hub amba loo yaqaano Ethernet hub oo kana waxa kaloo kamid ah Ethernet switch loo yaqaano oo kana waxa kaloo kamid ah Ethernet bridge loo yaqaano oo hadda sawirkiisa halkan aynu ku haynin. waxa kaloo kamid ah router aba routers oo dhowr nooc ku yimaada, mid wireless oo inta badan small business and home use loo isticmaalo iyo kuwa businesska loo isticmaalo. qaybahan ayaan ka hadli doonaa maanta iyo functionality iyo waxyaalaha ku kala duwan yihiin. waxaan ku bilaabi doonaa hub muxuu yahay. hubsan la soconno waa hardware dhaxda la dhigo oo computerada lagu xidho. hub waxa loo yaqaanaa layer 1 marka network la baran doono insha Allah waanu iman doonaa. waxa loo yaqaanaa hub maaha intelligent hardware sababtoo ah male wax la yiraahdo micro segmentation design male. sidaad u jeedin picture kan amba access sawirada halkan ka socda, hubkani wuxuu leeyahay ilaa 4 hog afar boor buu leeyahay. afarta boor markuu one signal yimaado wuu u qaybinayaa dhammaan boorarka oo dhan way u qaybsamaysaa. signalkaasi boorarka oo dhan ayuu tegayaa. markuu boorarka oo dhan tago wuxuu sameynayaa wax la yiraahdo collision domain kaasi markaa network wuxuu ku sameynayaa wax la yiraahdo delay. saa darteed waxa loo yaqaanaa waa one collision domain. all boards one collision domain ayaa loo yaqaanaa networka. so collision domain kiisu waa sidaas. marka macnaha waa sida walkie talkie aad aragteen raadioga lagu wada hadlo ee la yiraahdo may maqlaysaa switchka ka qaasi over qofka kale marka uu hadlayo amba dadkiina arki jiray phone-yaasha ay ku loo isticmaali jiray saasoo kale u shaqeeya. information kama direeyo hal mar mana helayo same time. macnaha waa inuu hadlo qofku oo sugo signalku saas u shaqeynaya. marka hub lama isticmaalo hadda, laakiin inaad ogaatiin ayaa wanaagsan qaabka uu isticmaalo qaabka uu shaqeeyo. networkna waan ku arki doonaa haddii la yiraahdo insha Allah. switchka haddaan sii gudubno switchku waa ka duwan yahay. switch isagu waxa loo yaqaanaa Ethernet switch. wuxuu kaga duwan yahay isagu wuxuu isticmaalaa wax la yiraahdo micro segmentation. laakiin hubka iyo bridgeku ma isticmaalaan. waqtiyadan xaadirkana lama isticmaalo hub and bridge. switch wuxuu sameeyaa virtual circuit between devices. macnaha device kasta iskii ayuu u qaybsan yahay. so marka haddii halkan device lagu xidho computer, halkana device kale lagu xidho gaar buu u noqonayaa. marka way kala sidii waxa u dhaxeeya bridge oo kale. each board marka board kasta oo switchka kamida separating collision domain. macnaha collision domain wax la yiraahdo oo u gaara traffic gaara ayuu gaar u leeyahay. waxa kale uu leeyahay maxaa la yiraahdaa bandwidth is not sharing and link are fully duplex. ma share gareeyaan waxa loo yaqaano bandwidthka ma share gareeyaan iyagana. sharing bandwidth male. wuxuu kanu information kana waa full duplex ayaa loo yaqaanaa technically. macnaha waa send and receive same time. information uu diraya wuuna soo celinaya same time.
switchku wuxuu leeyahay wax kaloo important oo la yiraahdo power of internet amba loo yaqaano PoE oo laga soo gaabsaday power of internet oo arki doontiin power of internet switchka ayaa la gelinayaa xarig RJ45 marka RJ45 information-kana uu diraya dabkiina wuu siinaya waa shay aad u wanaagsan so waa electrical power la siinayo inta badan waxa loo isticmaalaa kamaradaha iyo wireless-ka marka network lagu xidhayo because lama samayn karo in dab meel dheer looga soo qaadi karo marka inta badan sidan ay og yihiin IP phone-ka wuxuu isticmaalaa power of internet CCTV-yada amba kamaradaha wireless-kana waa loo isticmaalaa okay switchkan iyagana sidoo u shaqeeyo oo kaga duwan yahay maxaa la yiraahdaa hubka so saad u jeedin markuu yimaado signal wuxuu u diray exactly kii uu rabay uma qaybinayo all maxaa la yiraahdaa halkan oo dhan uma qaybinayo wuxuu u dirayaa halkii la rabay ayuu u dirayaa signal baa imanaya hal signal baa yimid boorkaas ka baxaya markaas saas ayuu kaga duwan yahay switchku marka la barbar dhigo hub so switch wuxuu isticmaalo waxa la yiraahdaa MAC address waa layer 2 baa loo yaqaanaa layer 2 switchna waa loo yaqaanaa each port waa one collision domain bridge-ku isagu ka duwan yahay bridge wuxuu kala qaybiyaa laba network ayaa lagu kala qaybiyaa waa device bartanka la dhigo oo sidan oo kala ah labada network ayuu markaa kala qaybinayaa barihii hore la isticmaali jiray hadda lama isticmaalo bridge markaa labada network si ayna iskugu gudbin ayuu kala xidhayaa signalkooga macnaha uu kala jebinayaa network so waatan network calaamada traffic ay red ahayd tii greenka ahaydna greenkeega markaa iskeed bay u shaqeynaysa markaa iskuma gudbayo information dhinaca kale waa border oo kale haddaan u nimaadno routers amba router waxa weeye waa hardware computerka waxay ku xidhaa internetka so routerku waa root macnaha waa waxa weeyaan waa road amba wado amba dariiq ku geynaya internetka waxaa kaloo isticmaala wax la yidhahdo packet network ayaad ku baran doontaa waa layer 3 network device ayaa loo yaqaanaa wuxuu kaloo qaybiyaa laba network ayuu kala qaybiya xaggan waa switch xaggana waa switch laba network ayaa ku xidhan marka mid kastoo kasoo baxa waxa loo yaqaanaa broadcast domain aad baran doonti networka kadibna wuxuu ku geynayaa internetka ayuu kugu xidhayaa sidan uu egyahay divide a single physical network into the multiple logical networks marka physical network ayuu u qaybinayaa qaybo kala duwan oo fara badan oo logical networka kuwana waan baran doonaa sub interfaceska ayaan baran doonaa networka markaan dhigan doonaa hadduu leedahay insha allah wuxuu isku xidhaa join to the network using a unique network address network ayuu kugu xidhayaa isagoo isticmaalaya unique network address u gaara isagoo isticmaalaya amba loo yaqaano IP address gaar last one iyo waxaa isticmaalaa oo internetka kugu xidhaya kan oo loo yaqaano network interface card wuxuu leeyahay mid wireless ayaa jira iyo mid ethernet cable imika xariga meeshan ku jira waxa la yidhahdaa ethernet cable so informationkani wuxuu ethernet cableka marka la geliyo RJ45 oon soo baranay wuxuu sameynayaa information serial data information uu isdaba socdaa markaa serial data la yidhaha wixii saa gadaal isku socda kana waa parallel data halkuu computerka ka xidhan yahay ayuu ugu diraya chipkana halkan ku jira wuxuu leeyahay wax la yidhaha MAC address
MAC addresskaasi 48 bit buu ka kooban yahay. lambarkaasi lama bedeli karo, waa unique number u gaara each device amba device kastoo gaara. MAC address waxaa laga soo gaabsaday media access control. waxaa jiro kaloo jira wireless access point mid loo yaqaano. kani waa switchkii halkani. so wireless access point baan ku xidhnay. wireless access point wuxuuna siinayaa inaan laptopka ku xidhno inagoo xadhig ku xidhin, oo signal buu u dirayaa. kadibna wireless laptop can be communicate with a network ula shaqeynaya markaas. xaggana waa internetka, meesha internetka. kuwana waa network computer, laba computer oo kale. halkaasaan ku joojinaynaa.